بوق بدن باتاغ سيلع بدن يا تاغ أمحاره لا دري لا تاغ marka waxaan ku eeday wiilkii inaan dhaxdhaxaadisaan rabaa cid kasta waa u diray telefoon buu iga qaban waayay ra'iisul wasaariyaan u diray wuu ka soo diiday aadmadooban u diray wuu ka diiday niyow ninkaas hataa telefoon igama qabanayo inaa arrintaas aad dhex gashaan waxaa diidanta ii sheegaan idhi ansarkaaga waxaa diidanta ii sheeg tan kale amxaarada ha nagu dirin ka shaqaatay mooyaa qaatay dagaal galaydaan amxaarada dadkii 77kii taan kugu dhignay 77kii dadkii dagaalamay amxaara meel saaray hadda maanta qofkoona kama joogo adna ka mid ma ahayn ma abgarad ha nagu dirin bahashaan lama dagaalami karo dalka lama dagaalami karo gobolada dalka oo dhan ay joogtaa basaaskeeda oo kaliya haddii maanta xamar laga aruuriyo liira ma dhamaanayo marka waxaad yeelaysaa si sir ah siyaasad ah ku maamul arrinta saylac si khaas ah si siyaasadaysan ku maamul lama diriiri karno midda kale koonfur galbeed amxaaray raacday koonfur galbeed amxaar ma raacin meeshii lay deganta amxaaran awliba joogtay 8 degmo oo gobolka bay ka mid ah iyo deganta amaankeedii waxeeda ayada hays ilaahay ka sokow hadda maanta guur hadii la yiraahdo ay bacdo umadaas meeshii joogto ciidan ma haystaan waa la leeyahay dadka hala laayeen kulay tala inaad ku talinaysid uma malaynayo wixii kale daawo ah aan isla meel dhigno sheekada aad waxa u taagan saylac magaalada la yiraahdo saylac annaga tuulo yar oo awqaari meel la yiraahdo awqaari meel la yiraahdo buur agteeda tuulo ku taalo saylac ma siisanayna sida nadab awqaarta idin muhiima taasoo noo muhiima dagaalka amxaarada ma ku jirno marka adigu waa wada hadalnay waxaan idhi ninkii waa u tagaa waa kula soo hadashayna hadda maalin waay caawa barya beri diyaarada raacay waa baxa habeen dambe 2 saac markay teleefankaaga hayso baydhawaan tagay oo kacsan oo buuq badan ka taagan yahay adigu meeshii baan tagay ninkii waa is aragnay aan idhi la hadal ninkan